السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta ku xiran janalkayga. waxaan idin wadaa qumba yar buskud yar oo qumba aan ka sameynaayo oo casriya sidaan u sameynaa isla aragno. qumbaha waa kaasa meeshaas uu ku jiraa asigoo fresh galti fresh ku qoran. koob qumbaha meeshaas aan kusoo diyaarsaday iyo koob sokora aan meesha kusoo diyaarsaday. qumbaha maxay ahayd kan caadiga waa shiidan kartaa, waa ka isticmaali kartaa, kana waa ka samaysan kartaa, mid midka doontaad samaysan kartaa. iyo koob sokor oo caadi ah oo maxay ahayd oo shiidin oo waxba ku taban aan ku darin waaye. iyo 3 xabo ukun shaharkeeda cadaanka ah aan ku soo daray. waxay 3 shay oo meeshaas aan ku soo shubay. waa koob qumba iyo koob sokora iyo 3 xabo ukun shaharkeeda cadaanka ah. waxa kale meeshaas iigu jiro bur 3 qaado bur meeshaas aan ku soo shubtay intaan ka isticmaalaya isla arkaynaa. meeshaasna waxa iigu jiro vanilla haas buu ka kooban yahay buskudkeena insha Allah. vanilla ku soo daray waxay xoogaa yar oo vanilla aan ku soo daray. waxaan ku darayaa marka si fiican aan isu dhex gelinayaa qumbaha iyo ukunta shaharkeeda cadaanka. wax kale oo ku daraayo ma lahan, caano ku dari maayo, saliid ku dari maayo, sideesaan ku sameynaya. marka waa kaasa waxaan marka ku dirayaa laba qaado camal oo buraan ka isticmaalaya. burka meeshaas aan ku soo diyaarsaday ayaan waxaan ka isticmaalayaa 2 qaado camal. marka si fiican isu dhex gashaan rabaa si ay isnoo soo fiican soo keen dhex galo. sokorta yani ma shiidan, sokor caadi waaye oo fresh marka sidaasaan ku soo wadaaya insha Allah. hadda waxaan ku dirayaa 2 qaado bura si uu yani isugu kay qabsado qumbaha aan ugu darayaa. marka isu socod wanaagsan. buskudkan casriye aad ka dhigan kartaa. maxay ahayd qof martiyo ku timid oo sameyn kartaa. isku daah ma leh, tray barsata waaye. waxaan soo qaatay digsi, waxaan ku shubayaa qumbihii aan meeshaas ku soo diyaarsaday iyo koobka sokortaha iyo 3 xabo ukun hadda aan soo dhex galshay. marka dabkaan saarayaa muddo 10 daqiiqo ayaan waxaan rabaa inuu si fiican uu isu keen soo dhalaalo. sokorta iyo qumbaha iyo isu kay dhex galaan si fiican u dhalaan muddo 10 daqiiqo. dab aad iyo aad u gaaban ayaan ku soo daaray. dabka ma badno, dabka aad u hooseeya. markii ilaa muddo 10 daqiiqo ayaan ku soo labayaa si ay yani isu keen dhex galaan si fiican oo sokortuna aad noogu dhalaasho. sidaas aan ku soo wadaaya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. buskudka aad iyo aad u fudud yahay, aad iyo aad u macaan badan yahay. waad ka heli doontiin insha Allah. sameyskiisna ma dhib badna, isku daah ma lahan. 3 shay oo gurigaada aad ka heli karto ma ka samaysan kartaa. hawlka u sii badanna ma ahan. marka waa kaasa waan soo dhalaashay si fiican. marka wuxuu u baahan yahay in dabka aad kor taagnaato oo saas aad afraad u walaaqdo, aad dabka isu dhex geliso yani digsiga aad kor taagnaato aan ka tagin si uu si fiican u isu dhex galo. marka inuu gubtaan diida hadii aan yani walaaqa aan ka dhaafo. marka saasaan ku soo wadaaya insha Allah. marka waa inuu jaayis khalaas. waxaan ku soo shubtay weelkii aan ku qastan ku soo celiyay ilaa iyo muddo 1 saac camal ayaan waxaan gelinayaa talaajada qaybta kore fresh-ka gelinayaa si uu yani xoogaa noogu soo qaboobo ama 1 saac ama 2 saac hadda ka doonto. haddaad rabto habeenkaad gashan kartaa, suuxiyaad samaysan kartaa, saas waa loo isticmaalaa. balse aniga inaan boobsiyaan rabaa. marka muddo 1 saac camal baan ku soo xiray. muddo 1 saac camal ayaan fresh-ka geynayaa. markuu ii soo dhalo ayaan isla soo noqonayaa insha Allah. waa kaas isu socod wanaagsan. waa kaasa waan ka soo baxshay muddo 1 saac camal ayuu noogu jiray. sidaan u sameynaya marka saas kuskus camal aan ka dhigayaa. sidaasaan ku soo wadaaya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. foornada waa ii sii daaran tahay 160 aan geysay kori hoos ilaa iyo muddo 20 daqiiqo camal wuu ku jirayaa insha Allah. marka sidaasaan ku soo wadaaya insha Allah. sidaas kuskuska aan ka soo dhigayaa asiga balbalaar isku bedelayo markaan foornada galsho. isla socod wanaagsan. waa kaas waa soo dhameeyay. intaasaan ka sameeyay oo noqday
marka waa arkaynaa soo noogu soo baxo insha allah. waan soo diyaarshay waa kana saxankana noogu soo diyaarshay haddaad ka hesheen asxaabta la share gareeya soo dhawaada meel kastoo dunida caladeeda ka joogtaan. waa janalkiina Qatra Herbal oo idin leh waxaan kaga tagaa cimri dheer caafimaad qab. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada.